gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa tilmaamay in xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka doodi doonaan maalinta Sabtida ee taariikhda ay ku aastaysan tahay 31 bishan ajenda ku saabsan darbiga dawladda Kenya ay ka dhisayso duleedka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado laga bilaabo maanta 29 bisha Maarso waxaan dib ugu soo noqday hogaankii guddoonka golaha shacabka ayaan rasmi ahaan ugu soo noqday saadaradeed laga bilaabo Sabtidana waxaan bilaabaynaa howlaheena caadiga ah waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada inay ogolaadaan ku dhaqanka sharcigaas iyo soo jeedintaas xildhibaanada badan ay soo jeediyeen aniguna taasaan ku hogaamin doonaa haddii aan yiraahdo rasmi ahaan golahaasi laga bilaabo maanta anaa dib ugu soo noqday markii horeba waxay ahayd waxa iga reebanaa kaliya wuxuu ahaa inaan shir gudoomiyo mooshinka mooyaane wax kale iga reebanaa ma jirin qaanuuniyan inkastoo dadka qaar si kale ay u fasirteen oo insha Allah Ilaahay soo hanuuniyo ayagana waxaan alla ugu baryaynaa inay marata fahmadarada alla ka bixiyo ayaan alla ugu baryaynaa dhanka kale gudoomiye Jawaari ayaa tilmaamay in caqabad ku horgudban ay tahay xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qabsoomida shirarkooda ciidamo uu tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay dhigtay xarunta golaha shacabka weli ma dhicin Soomaaliya taariikhdeeda inta aan ka warhayo in baarlamaanka ama xarunta golaha shacbiga xurmadii uu lahaa ciidan la duldhigo arintaas arin hore u dhacday ma aha arimaha noocaas oo kale haday dhacaana waa saansaan oo aad khatar u ah oo dareen dad gelin karta in afgambi loola daba jeedo saadaradeed ma qurux badna in marata xurmada aqalkaasi lagu talax tago ma qumana sharcina ma aha amniga oo xaruntaasi xilkeeda wuxuu saaran yahay guddoonka ayaa amar ka bixiya guddoonka ayaa tababaradooda hubsada in ay marata xasaanada iyo xurmada ay kala yaqaanaan meesha ku kala geli karo meesha aan la geli karin taasna waxaa loo yeelay in xildhibaanka aan la afjigi karin oo la hadlaayo inuu si sugan ra'yigiisa u jeedsado ayaa looga dambeeyay hase yeeshee arinta hadda lagu kacay ma qurux badna dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa dhankiisa tilmaamay in ajendaha baarlamaanka la horgeeni doono maalinta Sabtida ee taariikhda ay ku aastaysan tahay 31 bisha Maarso ay tahay mooshinkii ay soo gudbiyeen xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka oo ay ka soo gudbiyeen gudoomiye Jawaari بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا دماء وسلامتين سلام كدب ورصحافة أن ربنا هلكن كآخرية إلهي يراهدو وكو سابسان حالة هاد جرتي وحصو صعدو أن ربنا نسمينه labadan dhinac ee isku haya hogaanka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shir gudoomin iyo go'aanka gaaridda ajendayaasha ay ka hadlayaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo maalinta Sabtida ah ee taariikhdu ay ku aastaysan tahay 31 bishan labada dhinac ay xuseen inuu furmi doono kalfadhiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya walow dhinac walba uu tilmaamay ajendaha looga hadli doono shirkaasi waxaase laga dhor sugayaa dad badan ay isweydiinayaan cid shir gudoomin doonta kalfadhiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku yeelan doono Sabtida xarunta golaha shacabka